بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كسلام يا دمان ومد الصوماليات. واحد دون هنا نعاول ما قضوا هالكن كجاه هذا الله. وقضى قضب أو أي مدتهاي هذا الكيما أنت دويد ورباهين تلو واجيني كنا هذين بيحي. مركي أي ورباهين تصوب دكتي فده حديه كجدنا ودنك أما هذي تهي قندراسي السلام بحيو هذي تهي شغالة سينتا هذي تهي وزارة ولية هاي والبا سيدا وقدر ميل qoys mashruuc qoys uga dhigay ummadii dhameed ee wadanka lahayd ugu soo ururiyay shaqaaleyntii iyo qandaraasadii iyo wixii ummadda wada lahayd oo dhan ugu soo ururiyay waa kii warbaahinta la soo istaagay in qaranka inoo ma qaybsamayo shaqaduna inoo ma qaybsamayo hadal lifarkiisu caynka marka ummadda Soomaaliland waxay aad u la yaaban tahay oo ka dhigay meesha wali bakhaarka uu ka dhigay marka maadaama meeshii bakhaar ka dhigay waxa uu doonayaa هذا العضو مدان قبله وحنا نوم قيم سميسا أنيقا أياد أنيقا أنا يقول في الليل بوي هذا الكيسو وقت نروش يعني نكر ما هنن شرعي حريو يردقان المدد نجوه قاميو يا ركتي من نبله كل يوم حوي ده دريم بوكو يو ده هذا عضو ريوني يو بقرطوي يو حوي سكسة صورة بعد صورة سافرة تيسا يو حول أورسي لكن وح إنه وشيء إن أي تاريخ ده وبدأ الصوماليات كم ركعيسو إن قف أندونيستا ترين كتات كم تليني أنا كل رأي دونين هذه كنا واحد ماشى بوب تانا ومالمو وأنا اللي أقول حسابته من دونا وأنا اللي قاعد من دونا واحد ما أنت جلي يسوق يو واحد قبض فلسة مين يسو يدت قاعد هتدو ده بوب يسو يدت قاعد قويس كذا كفسح ذي قاعد تري وحيد قصور بحابة بابا والله معلمين تودي قرية كقبصدين يدركي مركعيد كلامه مدي كلامه الصراحة عبيين واحد في حوي مدو ويقرنتهاي مدو ديوان كي قشتي وأنا لقول حساب تمية مدة كلا رئيس المال لأن واحد شيء ديك مدحونا وكل شيء إنسان إذا فريلا تكسر دولة واحد ستان ونك النوع عودة مية ونك فكرتي سيارة كذي سنوعاتها هاي يديك هاي دي طلع وحايه إنك لسان ديدا أيه نيو بتكين أو دور إنسان إنه كشران يقول مداس ينحوله ده يهتدوا ده شخصيات قال يسكرونان وحوي تاريخنا وين ويدين دونتا دعوة كفرا بدل الله من كمان تدعيا مالو والبدعاء يسدا إنون الله هاي ومثل ما أهانا إنون الله هاي يسدا وحقس عدا ودكينا يوحيابها مالو والبدت كملاحظة شيء كان يكيب هذا runtii waxa weeye taariikhyahanada iman doona oo waxyaabo ay aad iyo aad ula tacajabi doonaan oo isweydiin doonaan ummadii dadka markaa meesha ku noolay waxa si ka dullacayeen sida loo dhaqmayo mid noocee bay ahayd mid sidoo u fikiraysa bay ahayd in badan bay akhlaaqdeena iyo qiyamkeena iyo dadnimadeena wax iska weydiin doonaan marka waynu taariikhda u wardiganaa waynu arrinka runtii aad iyo aad ugu baraarugsanaanaa sidii aynu wax uga qaban lahayn qof waliba qofka ku xiga ugu baraarujin lahaa inkastoo muddo aad iyo aad imkaad wadayna soo baraarugayso maalmaha nidaamkani jirayana yani nagu daba dheeraan baan rajeynayaa inaan dhammaanteen iska kaashano oo qof waliba inta awoodiisa ah sidii cimrigiisa loo soo gaabin lahaa ka howlgalo ummaddana looga qaban lahaa ummadduna dowladnimo xalaala ay u heli lahaa qodobka kale cajiibka waxa qodobka labaad isaguna aynu ka hadlayna isaguna caawa waxa weeye waa xarigan warbaahinta uu soo geliyey dacaayaadka warbaahinta la soo geliyaa ninka la dhaafay saacad raba la xidhaya horta ninkan garashadiisa iyo wixiisu inuu wax xidho iyo inuu isleeyahay awood baad leedahay cid kastaba xidh oo waxa laga filayo waana waxa ficilkiisu yahay waana waxa dhaqankiisu yahay waayo waxaan ognay waxyaabo in wadankeena intii uu joogay inta qof ee la xidhay ee ereygooda loo xidhay ama xisbiga ka tirsanaadaan ama siyaasiyiin ha ahaadaan ama salaadiin ha ahaadaan ama dad caadi oo shicib ha ahaadaan marka waxa weeye waxa kaliya uu garanayo marka wax lala yaabo iyadu maaha waxaan leenahay intaad xidhi karaysa xidh ummaddan waa maalmo waxaad joogtaa waana lagaa qabanayaa ummadduna insha allah waxa weeye dhaqso waysaa kaa qabanaysaa ficiladaadana iska wado dee la soo bax noolahaagii iyo miciyahaagii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu